عليكم السلام أستاذ. يورا ساعتها ما شاء الله في عنا أستاذ الحمد. ما شاء الله أحمد. تلفون كادان نوغو حريري كليا أتقنا كيبورد كليا نوية لنا فيديو إيما هجاجي أركب كمبيوتر كنا أصلا كلاش كشقينا. أستاذ أرنتس أنا كعاونة إن شاء الله 10 كذا وشرح كرتها. أنت ما نوغو حريريني. أنتوا أنا وحريري كرا 10 كنا وقوتوا بكرا ربضوا إن شاء الله. متكا جالشة وقوس مكرا. هنا أقول شقينا ديار قواني علم جاي هنا كذا ديارنا. حسن موها. أستاذ حسن وحسن سكرين شير وأنا أولي كرتا سما. سفيان. أوكي جود مركز زوم عصب نوسو حريري كوكان نوسو صار شاشة. أستاذ كان لدا قصو حريرين. ريب ملان. أوكي. بوق ما سوسارا. أصلا. Page 28 نوصل. ألو جدا ما أستاذ. ما شاء الله ما أركان. أصحابك كلا سيدو كلا ويلا أركينا فلان. ما أستاذ بقول أنا واسوريجين وياي بقول ما أعرفه. إيش كعادي واحد تقطع. قيبت أصحابته كجرا أكار كيسما قيبت كلا تك. أنا أستاذ. ما أصحابته كلا هنا أركانا وراستي. أني سما ركان شاشة. أستاذ عنكم يا شال أنتوا جوا منين أستاذ؟ 28. أستاذنا ما أعرفه. هذا يرسو دوي كليا. شاشة دن ما ركتين ميام سويدي كفوكتان. فإيش لقد أنك يا متى شاشة كل شيء. waxay noo dhahdaan record noo dhaha asxaabta hadday wada arkaan واحدة ما هذا أستاذ bismillaah asxaabta mar kale soo dhawaada buugga istanbul unitka labaad waxaan ku jirnaa bogga 28aad mawduuceena maanta kii shalay ayuu xiga tirooyinka ayaan ku dhex jirnay tirooyinka waa ogtihiin iyagaa laba nooc u kala baxa mid waxaa loo tiriyaa 1 2 iyo 3 iyo si lamida midna waxaa loo tiriyaa 1 2 3 4 marka shalay haddii 1 iyo 2 ilaa milyan aan aragnay maanta 1 ilaa milyanaad sida loo kala dhahayo ayaan baranaynaa mawduucu waa aragtaan kajinji ordinal numbers tirooyinka ordinalka ah oo carabiga waxaa lagu dhihi jiray axad casharaad waagii dugsiga hoosaan dhiga jiraa ku xasuustaa si lamida privateka englishka ordinal numbers tirooyinka
xasan recordingka nooma taabsanaa malaynaa shaashadda waa arki lahaa ma ustaado shaashada adi ma arki karti laakiin adiga uu record gareynayaa soo maa si fiican haa waa ku soconaynaa tirooyinkan af carabiga waxaa lagu dhahaa alcadad tartiibi tirooyinka isxiga oo koowaad labaad saddexaad loo tiri markiis dabaqadaas wadadaas shanaad lixaad la leeyahay tirooyinka loo isticmaalayo anoo ku dheeraanin mawduucan u gudagelaya sayi a meeshan inoogu qoran xoogaa asxaabta si ay u arkaan qaybta sare waxyar tag okay sayi oo tiro ah ama calaamada oo or amala noo jiidan tirada iyo inchi isku xijinaysaa ama isim iyo unji oo ama tira ayaa waxaa raacinaysaa tiradaas ama magac ayaa raacinaysaa tiradaas ku daba xijinaysaa si aan si wadax ugu faahno tusaalayaasha uu boogana siiyey aan u gudubno örneeg waa example ama mithaal saa u taqaano waa tusaale benim evim birinci kaabta gurigayga waa dabaqa koowaad gurigayga waa biyaanada koowaad benim evim gurigayga birinci kaabta waa biyaanada koowaad hadaatii waxaana la dhahayay ama ma taqaanaa tiraa waxaa raacinaysaan bir oo shalay kow kusoo barnay oo hal ahayd ayaa maanta injidan oo sharciga qaybta buluugka ku qoran oo graamarkan uu wataa gadaal laga raaciyay bir waa kow bay ahayd birinji baa lahay koowaad bay noqotay waa dabaqada koowaad iki shalay laba baan ku barnay haddii maanta uu qofkaan dhihi lahaa gurigaygu waa dabaqada labaad iki iyadoo laba ahayd ikinji kaabta ayuu dhihi lahaa waa dabaqa labaad sadarka xiga exampleka sniif kaajinji kaabta fasalka dabaqee waaye waa su-aal sniif kaajinji kaabta sniif fasal weeye kaajinji sida mawduuca aan kusoo aragnay kaaj shalay waxaan kusoo baranay oo waa imisa iyo waa meeqaa loo isticmaalay kaaj waa how ayay ahayd oo maanta kaajinji kaabta waa dabaqee su-aal calaama su-aal ayaa gadaal ka saaran question mark waa aragtaa sniif kaajinji kaabta dabaqa ande fasalka waa dabaqee sadarka saddexaad ukul seksinji sokaagta ukul iskuol ayaa laga wadaa ukul iskuolku dugsiga seksinji sokaagta seksinji sokaagta waa wadada sideedaad sekiis shalay waxaan ku baranay cashirka tirooyinka in ay sideed ahayd waa iskuolka wadada sideedaad ayuu ku yaalaa ku yaalista ereyga ah asxaabta cusub way ku wareeri karaan laakiin dadkii mawduucyadii hore u joogay waxa ay bateen sokaag waa wado keliya sokaagta markii gadaal laga raaciyay xaaladda kusugnaanshaha xaaladda kusugnaanshaha cashirka ahayd bulunmo durumo ayaan kusoo baranay sadarka afraad sonunju sirada kimbar sonunju sirada kimbar safka ugu dambeeya yaa jooga safka ugu dambeeya yaa jooga soon af turkiga waxaa lagu dhahaa ugu dambeeya soon sonunju waxaa la raaciyay afartan
xaraf gadaal ka raacday waa waxa ay taabacsan tahay grammarkii oo qaybta buluuga xagga sare inoogu xusnaa injidaas haddeer maadaama soonta ow ay wadato darteeda xuruuftii inje iyo kalena iyadoo loo fiirin yahay sononjo ayay sidaas ku noqotay safka ugu dambeeya kumaa jooga sira waa saf sirada safka ugu dambeeya waa iyadana waa la muujiyey sadarka shanaad ombirinji sayfada resimlarva bejka ama bogga 11aad sawiro ayaa ka muuqda ama sawiro ayaa ku yaala ombir shalay 11 inay tahay aan ku baranay ombirinji waa 11aad bogga 11aad sawiro ayaa ku yaala waa anigoo idin dhahay camal 28aad cashir ayaan ku qaadanaynaa si la mid ah ombirinji sayfada resimlarva waa ka gudbay qaybta shanaad ashaadaki sorolare jawaab leelam su'aalaha hoos ku yaalo aan ka jawaabno ashaa waa hoos ayaa laga wadaa ashaadaki hoos ku yaala ashaadaki sorolare jawaab leelam af turkiga waxa aan idinku kala qaadayo sida sayniska markii la baranayay waxaa macquula macallimiinteena hal sadar isku yaala in ay hal jumlo nooga soo saari jireen laakiin sidoo kale ayna ogeysii jireen xaraf walbo kelimo walbo la marayo macno gaar ay leedahay laakiin si fasiraad nuxur leh looga soo saaro lama kala qaadayo tusaale ahaan qaybtan shanaad su'aalaha hoos ku yaala aan ka jawaabna ayaa la dhahay waxaanan si durbaa idinkugu dulmari karin in aad si gaara u fahantaana rabaa ashaadaki sorolare jawaab leelan su'aalaha hoos ku yaala aan ka jawaabna soomaaliga markii la fasirayo way ku kala dambeyn karaan laakiin af turkiga sidaas ayaa safkaas ayay qaataa su-aasha koowaad sinifta kaaj kişi var su-aasha koowaad waxaa la isweydiiyey sinifta kaaj kişi var fasalka meeqa ruux ayaa joogta ama ku sugan maanta xiisadeenna inta qof ee kasoo qayb gashay macala aniga markii lagu daro 9 ruux ayaa ku joognaa sinifta 9 kişi var inaad jumlo sidaas siniftada korkii taala su-aasha dhexdeeda sideeda usoo dejinaysaa 9 oo 9 ahayd baa qoraysaa kaas taas oo su-aal ahayd waa ka boodaysaa sida luqadaha caadigaba su-aal oo waay lagugu weydiiyey jawaabteeda sidii qaws ay u noqonaysay si la mid ah waayda ay isugu soo noqonaynin ayaa meeshaan sinifta kaajka shuwaad fasalka meeqa ruux ayaa joogta fasalka tirada ayaa sheegaysaa intaas ruux ayaa joogta ayaa leedahay jawaabaha waa idiin sii qishay mataqaanaa maadaama wixii meelaha bannaan buuxi ah waan idin fahansiinayaa adikaana inaad ku feegaartaan rabaa ma fahamteed asxaabta cusubaana ogeysiiskaan u dhex marinayaa maalin walba arbaca isbuuca dhammaadkiisa maadaama jadwalka soomaaliya lagu barto sabti ilaa arbaca aan xiisadaha qaadano 4 maalmood ka mid ah isbuuceena 10 qaadanaynaa maalinka ugu dambeysa waa imtixaanaynaa waa istijaabinaynaa isbuucaas ama unitkaas la soo dhaafay exercisyadiisa ayaan iska kontrolnaa marka fadlan dareen gaar aan u yeelana su-aasha labaad bir haftada kaç gün var bir haftada kaç gün var halkii isbuuc meeqa maalin ayaa ku jirta haddii waa ka jawaaba aad tiraahdo maadaama aan luqadda ku cusubtiinaan idinfahansiinaya bir haftada sideeda usoo qoraysaa kaajkaas waa ka boodaysaa iyada dhan maba soo qoraysid mar kale isbuuca 7 maalmood baa ku
jirtaa si aa u tiraahdo bir haftada iyo digulwa halka isbuuc 7 maalmood ayaa ku jirta ayuu ka kooban yahay. 3 siis kaaj kilo sunus adinku meeqa kilo ayaad tihiin adigu meeqa kilo siistaas bedelkeeda seen way geli kartay casharada ugu horeeyaan ku soo qaatay qofka si ixtiraam leh waxaa lagu leeyahay meeqa kilo ayaa tahay mudane ama marwo qof macalinkaaga madaxweynahaaga xildhibaankaaga mas-uul dowladeed ku ah waalidkaaga aad ixtiraamayso qof adiga da ahaan kaa weyn xushmad kaa mudan markii adiga aad leedahay inaad respect iyadoo xushmad ku dheehan tahay adiga oo yaray meesha isticmaal leh maahanay si ka habboon ka akhlaaqsan ayaa adinku asoo halka qof ah ayaa adinku leedahay meeqa kilo ayaad iska soo qaad adiga meeqa kilo ayaad tahay jawaabta markii adiga lagugu weydiiyo anigaa ugu jawaabaysaa hadaa adinka oo jamc lagugu weydiiyo dabcan iyadana waa dareysantiin oo waxaa uga jawaabaysaa annaga. su-aasha afraad aan u gudbay bir shishe suu kaa jira caagada biyaha oo hal xaba mise liira ayaa la siiyaa lacagta turkiga liirada imisaa la siiyaa bir waa kuubaan badhacnay waa taqaanin shishe waa caagada biyaha caafiga suuna waa biyo caagada biyaha oo hal xaba mise liira ayaa la siiyaa bir shishe suu sideeda usoo wada qaadanaysaa qaadtaas oo su-aasha ka boodaysaa 1 liira la gadaa 2 liira la gadaa tira ahaan u qor ama tiradii iyadoo xuruuf ah kelima camal loo qoray waa qori kartaa sida kula habboon laakiin adiga maadaama luqadii cusubtaa weli tirooyinka qoraal ahaan sida loo qoro ama loo hingaadi aad baranaysaan ilaa isku dadaala inaad xuruuf ahaan u qorto. 5 masada kaaj kitaabba miiska dushiisa masa waa miis keliya da maadaama la raaciyey waa xaaladda ku sugnaasho buug maadaama miis hoostiisa aan la gelinayn dushiisa la dhigayo xaaladda ku sugnaanshahanna meeshaan ka muuqato masada kaaj kitaabba miiska meeqa buug ayaa taalla yaala. 6 sanin evin kaajinji kaabta adiga gurigaaga dabaqee ayuu ku yaalaa markii aad ka jawaabayso sanin baa lagu dhahay benim ayaa qaadanaysa sida cashirkan tusaalihiisa ugu horeeyo benim evim birinji kaabta ay u tahay adiga ka soo qaad benim evim soo dheh dabaqa uu yahay 3 hadduu yahay junju baa leedahay 4 hadday tahay doort baa 4 ku baranay doort junju baa leedahay. Okay. Todobaad Istanbul'da kaç milyon insan var? İstanbul meeqa milyan oo dad ayaa ku nool inta milyan ay tahay Google-ka geli Istanbul'da 16 milyon insan var inta aan ku aragto Google-ka population Istanbul'da in lamid ah tira ku dhisa adiga hor 8 doğum tarihiniz ne taariikhda aad dhalateen waa maxay doğum tarihim ayaa dhihi kartaa shirooyinka aad dhalateen sida taariikhdaada aad dhalatay sida loo dhaco bisha maalinka iyo sanadka oo kusoo baranay si la mid ah adna inta ku qor sanadka birinci sırada kim var fasalka safka ugu horeeya kuma fadhiya ama tuma fadhisa
طبعا سؤال طبعا سوكاكتاك هاجر بابا wadada meeqa baabuur ayaa taala casharkan waa dhegeysigiisu waa idiin soo tuuri doonaa oo xiga asan cashirka sad dhammaad ku dhow u malaynaa sidaas awgeed shaashadii way isjartay asxaabta kale ma arki karaan okay haddaan arkaa bogga waxaa u gudubtaa 29aad diilname ayaa ku qoran xaggaas sare diilname waa cashir dhegeysi ah meelahanba bannaan buuxiga ah adoo barnaamijkaas dhegeysanaya ayaa waxaa foomka oo hoteelka ayaa buuxinaysaa 6 dialoog dilneelan wada sheekaysiga ama dialoga meeshaan ciwaarka dadkaan dhexmaraya aan dhegeysano foomdaki boshluklaro doldurala meelaha bannaan ee foomka ka muuqda aan buuxino foomdaki waa foomka boshluklaro waa meelaha bannaan firaaqada doldurala aan buuxino hotel formo waa foomka hotelka cashirka buug Istanbul abir dhegeysigiisa midka ugu horeeya ilaa midka ugu dambeeyay qof walba uu haysta groupkan oo ku soo tuuray dhegeysta inta aad ka fahantaan dhaqanka dadkooda halka arbacada waa isla kontroolina cashirka inoo xiga noo gudbi yaasma toddoba aşağıdaki formu kendimize göre dolduralım. Foomka hoos ku yaala waxaan u buuxinaa sida annaga ee nuqusaysa camal kendimize göre ya for us annaga si nagu habboon oo annaga nuqusaysa camal kasoo qaad magacaaga adiga magacaaga shakhsiyan arday ahaan adiga qoro adresska guriga aad ku sugan tahay qoro telephone numberkaaga qoro hadda waa magacaaga benim adım markii magaciigu waa isada aan ku baranay hadda waa magac soyadana waa ismu nasab soomaalida badanaa ma isticmaasho laakiin carabta turkida dadka kale reer galbeedka ayaa surname u isticmaala annaga badanaa magaca awowgeena ama magaca aabaheena iyo awowgeena isla socda ayaa qorana umadba dhaqan gaar ay leedahay sooyaada waa magaca nasabka aan la xiriirinaysa awowga tusaale ahaan qof magaciisa ugu qoran masalan dadka labada magaca xasan inuu aadku ku qorto dayid uu gasho karaa xagga dambe anisa iyo farax ayay ku kala qortaa address waa xaafadda aad degan tahay wadada magaalada xaafadda wadanka adoo qorayo sida isku soo kala horeeyaan ayaa qori kartaa telephone numberkaaga odan numaraqsa waa qolka aad degan tahay numberkiisa gelish taarihi hotelka maalinka ma taqaanaa aad soo gelayso degistiisa gunsaysi iyo inta maalmood aad sii degnaanayso casharka hoose qaybta cagaarka waa cashir speaking ah kunashma 8 eeshli jalashalam si ma taqaanaa partner ah laba ruux aan u shaqeyno aan practice sameyno iska soo horjeed wiili gabar sida private-yada Soomaaliya wax lagu bartay adduunka insa buurada horteeda la soo istaajiyo ama labada qof oo wada fadhida la dhaha ya duj sayleelan saddex tiro aan sheegno arkadaşımız sayıları yazsın saaxiibkeenna tirooyinka ha qoran sonra kontrol edelim
tusaale ahaan ka soo qaad iqra maxamed ayaa mataqaanaa 3 tiro ay sheegtay maxamed ayaa mataqaanaa qoray qaab noocaas macnaha haddaan fasalka wada joogi lahayn kasii fiicnaan lahayd hebel adiga 3 tiro sheeg hebel sida saxan ha u sheeg masalan faisa waxay dhihi kartaa faisa axmed 989 506 201 camal 3daas tiro ayay tirisay tirooyinka intay doonaan hala ekaadaan mataqaanaa ardayga kale in uu sida ugu macquulsan uu u fahansay oo uguna saxan inuu qori karaa aan annagana iska kontrooleyna qofka ogaalkiisa garashadiisa inta gaarsiisanta luqadda ayaan tijaabinaynaa cashir cusub ayaa horteena yaala zoomka ma inoo deeqayaa masakleyda dogaan ugu horeeya ma ku darsanaa ayaa asxaabta cashirka ma culus yahay meesha chattinga haa ayaa kasoo yeeraysa alright marka waa ilaa dogaan aan ku dirayaa unity 2 ayaan weli ku jirnaa shahiirde xarafka c shahiirde waa magaalka dhexdiisa magaalada dhexdeeda shahiir waa magaalo sida carabigaba de magaalada dhexdeeda xasan ilaa hoos noo soco kartaa okay meesha ka joog waxaa la dhahay meesha hordhac ahaan nardesin xaggee joogtaa waa middaa ugu horeysa nardesin narde waaba soo baraynay markii adiga oo you where are you haddeer xaggee ku sugan tahay markii uu qofku ku weydiinayay su-aasha uu ku weydiin lahaa nardesin calaama su-aal keliyaaba ka reeba jawaabteeda isla meesha waa ka dhex bixi kartaa waa guri baan ku barnay dee waa ku sugnaasho aniga ayaa guriga jooga marka aan leedahay ama gurigayga ayaan jooga ama gurigaan ku suganahay mi ikhusaysa evdaim ayaan leeyahay waxaan baranay been inay aniga ahayd markii magacayga camal aan leeyahay beentii im ayaa gadaal laga raaci jiray hadaa xasuustaan maantan evdaim evde guriga keliya hebel oo third person ah qof naga maqan ah maxamed tusaale ahaan maxamed guriga ayuu joogaa markii aan leeyahay af turkiga mohamed evde ayaan leeyahay gadaal wax kama raacayo adiga oo xasan ah sen evdesin adiga guriga ayaa joogtaa evde sin ayaa gadaal ka raacaysa laakiin aniga